وشيء دليل قوي هايستا oo in la bixiyo ay waajib caynayta ruuxa duu bixin waayana waxa weey aakhirada waxyaalaha loo ciqaabayo illa ilaahay cafiye mooyee ayay kamid tahay hadaynu ku socono adilada rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla ayada udilka zakatul fitr wa ayada weeyaan wa bi ittifaq al ulama ulamadu way ku ifaqsayeen ulamada muslimiintu hadaad nin walba weydiisay ilaahay zakatul fitr ayadu ku waajibiyay ayada abu ku soo qaadaya marka waxa weeye waxa liibaanay buu ilaahay yiri qad aflah waxa guuleystay oo janno iyo rido ilaahay ku guuleystay man ahadka tazakka zakada bixiya man marka waa min aadaati min siyaq al-umum bay dhahaano man taasi waxay ku dhacaysaa ninkii way ku dhici gabadhiina way ku dhici kii yaraabay ku dhici kii weynaabay ku dhici kii waalaabay ku dhici kii miirka qabay ku dhici man hadii la yiraahdo min aadaati al-umum bayaan ama min siyaq al-umum bay dhahaan dadka dhan bay soo xariinaysaa man taasi marka ila quraanku balaaqo ku socday man tazakka ahadka zakayska bixiya nooc dooni ba ahadkaasi ha ahaado marka wadhakara zakada halkaas aan ku bixinay Soomaa wadhakara husay isma rabbihi rabbiga ismigiisa marka inuu ciid isugu tagno markii zakatul fitr aan soo bixinin ciid tagno maxaa dhacaya takbiirta baa la qaadaya Allahu akbar takbiirta baa soconaysa ilaahay salaada laga galo zakatu marka zakatul fitr uu bixiyay ilaahay buu xusoo takbiirtiiba ku xusay fa salla hadana uu tukaday fa salladaasina waa salaadii ciid weeye saddexdu marka is garab yaalaan sida ay u kala horeeyaan baan loo kala horeysiino koo waxa weeye zakatul fitriga la bixinayaa aroorta ayada laba waxa la bixinayaa maxaan ku dhahay takbiirta la qaadaya ilaa imaamku uu salaada ka galo iyo takbiirtu soconaysa waa markay tahay maxaan ku dhahay ciidul fitriga markay tahay weeyaan habeenka ciiday ka bilaabataa ilaa salaadu imaamku uu salaada ka galo ciida iyana ku istaagtaa de zakatul maxaan ku dhahay haday tahay takbiirta ciidul adha haday tahayna يوم عرفة يكبل لابتا يوم عرفة أي يكبل لابتا مالك عرفة اللي يستاجي بشو أي سجال كتاهي وحين يكون يستاجي أيام التشريقة مالك قربته قدام بس يكون يستاجي تكبيرته سلاسة تكبيرته نكرتاهي مركا فصلى روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفث وضعمة للمساكين من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات رسولك صلى الله عليه وسلم وحو رسول ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رسولك أيها واجبية فرض رسول الله رسولك إلهي بواجبية إلا أن رسولك يسوي أمونا داتهات وحلوب باشرين وحوي رسولك وحي دهل يراهم بودهي معايا رسولك أمي بواها وحمونا قرين وحمونا آخرين وما ينطق عن الهوى إلهي بايري هو كما هذا الجرين مركا فرض مركا نقول يا رسول الله ومجاز وي اما زكاه الفطر حقيقه ها واجبي الهي با واجبي رسولكنا مجاز بكو يا اسغنا واجبينتا تاسي مركا نقونيسا فرض رسول الله رسولك الهي با واجبي زكاه الفطر لا بخيو ما لو واجبي حكمته ظهرة للصائم نينكا صومن با لوو ميريا او لوو نظيفينيا من اللغو والرفث وحي لغوي كدعي يا وحي افحما كدعدي يا لغا نظيفينيا وضعمة للمساكين مساكين ترى والله طعام سيريا وحي قنان با لا سينيا وحو رسولك يري من احدك اداها غتا نينكا بخيه زكاه الفطر بخيه قبل الصلاه صلاه العيد هرتين فهي زكاه مقبوله وزكاه العقبري بيقول رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك قصلنا ومن اداها نينكا غتا بعد الصلاه صلاه الدبدين markii ay salaadii laga soo baxay barqinkii aad magaalada tagtay yaa zakada aad u bixisay haye maxay noqon fiye sadaqatu min as-sadaqat sadaqooyinka iska bixinayso ma garanaysid baad ajrigeedii oo kale leedahay zaka maqbuula ma aad bixinin ee sadaqa waxaad bixisay sadaqaadku kamida balaad dhowr waa isla maalinka waa maalinki oo qabla salaati al-eid iyo bacda salaati al-eid bay labada fadli kala yeelatay qabalku maalinka ciida inuu ka dhaco xaraam qabalku inuu ka dhaco maalinka ayada وحرام زكاة الفطر أو مالك اللبات عيد هبين كان اللبات إن تجارسيسو عيد هبين كذا اللبات إن تجارسيسو وحرام حرام بنك شهادة تجارسيسو قبل إن كوكون نقول إسرائيل وسيدين بلغا الدنيا بحي حق إلهي إسرع أيام أمضا إن الجدد كوري كام هريو زكاة ولا هانون هذا بحوي الدين اللي يقوله إلهي قوة القرطي وياه لقام الدين يو تاسم مكان نقول إسرائيل حديث كله وفي حديث ابن عمر بحديث كان ورينا رضي الله عنهما قال وحوي ابن عمرنا فرض رسول الله بواجبه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لكن حديثك أكل لما فرق بقى ودحيه